الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaad ku soo dhawaataan barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay aqoon maal barnaamijkaasoo aan idinkugu soo gudbin doono hadduu alla raali ka noqdo qaybaha kala duwan ee cilmiga sayniska qaybta hore waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maadada fiisikiska oo aan u aragnay in baahi weyn loo qabo iyadoo ku bixi doonto afka Soomaaliga waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideysan doonaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida macallimiinta ardayda iyo qof allaale qofkii jecel inuu barto maadooyinka cilmiga hana moogaan inaad had iyo jeer kala socoto caawiye janaal waxaan ku bilaabi doonaa casharada fasalka afraad ee dugsiga sare maadaama culayska ugu badan uu ka jiro fasalka afraad ee dugsiga sare kuna soo dhawaada cutubka koowaad wuxuu noqon doonaa periodic motion socod kaleed waxaan maanta qaadan doonaa hadduu alla ka raali noqdo cashirkiisa koowaad waxaana soo jeedi doono Cabduqaadir Cusmaan Cabdullaahi Caawiye waxaa had iyo jeer casharada kala socon doontaan Caawiye Janaal markaa fiirisid buuggaaga waxaa cutubka koowaad ku ah oscillatory motion anagana waxaa cutubka koowaad ka dhignay periodic motion sababta daa wax yar taabto waxay noqon doontaa marka la isbarbar dhigo periodic motion iyo oscillatory motion waxaa mug weyn ama cycle ciwaanka weyn noqon doona periodic motion oo oscillatory motion wuxuu noqon doonaa qayb ama cycle ciwaan hoosaad hoos imaanaya periodic motion maadaama marka ciwaanka weyn aan heesano waxaa door bidna in ciwaanka weyn ka dhigno jabtarkan ka dhigno oscillatory motion uu noqdo ciwaan hoosaad oo ah wax walbo markaan soo xiradaan aan taabto wax walbo oo noqdo periodic motion ma aha oscillatory motion laakiin shay walbo oscillatory motion ah wuxuu noqon doonaa periodic motion meesha waxa ka dareemaysaa marka inuu weyn yahay ciwaanka periodic motion oo socod kaleedka that's why markaan u dooranay ciwaanka koowaad inuu noo noqdo ama cycle cutubka koowaad ciwaankiisa uu noqdo periodic motion cutubka koowaad wuxuu noqon doonaa periodic motion oo aan dhihi doono socod kaleed at the end of this chapter cutubkani markuu dhamaado the student should be able to ardaygu wuxuu awoodi doonaa ama cycle uu kari doonaa explain inuu sharxo periodic motion wuxuu sharxi doonaa ama cycle awood u yeelan doonaa inuu sharxo periodic motion wuxuu kaloo qeexi doonaa ama describe simple harmonic motion waxa loo yaqaan socod isku dibadhac fudud kaas oo aan u soo gaabin doono SHM simple harmonic motion marka saddexaad ardaygu wuxuu awoodi doonaa formulate inuu qaabeeyo simple harmonic motion equations isla egyada ama si kala qaacidooyinka uu leeyahay socod isku dibadhac fudud ugu dambeyntiina wuxuu awoodi doonaa ardayga inuu qeexo waxa loo yaqaan simple pendulum oo hada fudud cutubka koowaad ciwaankiisa wuxuu noqon doonaa periodic motion oo ah socod kaleed at the end of this chapter cutubkani markuu uu dhamaado the student should be able to ardaygu wuxuu awoodi doonaa explain inuu sharxo periodic motion waxa loo yaqaan socod kaleed labo describe inuu qeexo simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud oo aan u soo gaabinay SHM formulate inuu qaabeeyo ama uu hagaajiyo simple harmonic motion equations isla egyada uu leeyahay socod isku dibadhac fudud ugu dambeyntiina ardaygu wuxuu awoodi doonaa in uu qeexo waxa loo yaqaan simple pendulum haddaan mid u kor istaagno marka koowaad waxaan geli doonaa introduction oo ah hordhac uu leeyahay cutubka this chapter describes chapterkan wuxuu qeexayaa the periodic motion socod kaleed simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud period and frequency kalka iyo rakaadka potential and kinetic energy tamar kaydka iyo tamar socodka uu leeyahay simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud simple pendulum walhade and solving related problems iyo inuu xaliyo mas'alooyinka la xiriiro simple harmonic motion iyo intaas kor aan ku soo sheegnay introduction wuxuu noqon doonaa waa hordhici this chapter describes chapterkan wuxuu qeexayaa the periodic motion socod kaleed simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud period waa kalka and frequency iyo rakaadka potential and kinetic energy tamar kaydka iyo tamar socodka uu leeyahay simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud simple pendulum waa walhade fudud and solving related problems iyo inuu xaliyo qaacidooyinka ama cycle mas'alooyinka la xiriiro intaas kor aan ku soo sheegnay
aan ka bilaabay marka koowaad periodic motion socod kaleed maxaa loo yaqaanaa ereyga aan isticmaaleen waa kal haddaan wax yar u noqdo aan sharxo kal wuxuu noqon doonaa waa erey ka yimaada dhankaasi miyiga kaasoo adeegsan jirtay Soomaalida ereyga kal wuxuu noqon doonaa waa erey ka yimaada dhankaasi miyiga sababtoo ah markaan fiirno maadooyinka cilmiga ereyada Soomaaliga ee erey bixinta lagu sameeyo waxay ka yimaada dhankaasi miyiga ereyga kal wuxuu noqon doonaa sheyga markuu meel ku soo noqdo waqti cayiman kadibna uu isla barti uu ku soo noqdo ayaa waxa loo yaqaanaa periodic motion ama si kale socod kaleed kal waxaa loo isticmaalaa tusaale ahaan xoolaha marka ceelka loo dhaamiyo ama si kale ceelka la geeyo ay biyo cabaan waxaa dhacdo maalintaas maalinteeda kale inay soo noqdaan tusaale ahaan markaan fiirno kalka geela markaan dhahno geela wuxuu qaataa 30 maalin ama si kale 15 bari waxaana ku tusinaysaa inay 30 maalin tahay badanaa marka la fiiriyo uu qadi karo maamada Soomaaliyeed ay dhahaysay hal 30 qaday bari kuma darsan weyso hal 30 qaday bari kuma darsan weyso oo micnaheedu maxaa waaye 30 maalin ay awood u leedahay inay qado therefore meesha waxaan ka ogaanaynaa hasha maalintii cabto 30 maalin kadib ay soo noqotaa marar qaar waxaa dhacdo biil ahaanta ama si kale abaar iska jiraan 15 maalin inay qaadato sidaas la mid ah ariga asina wuxuu qaataa usbuuc ama si kale 5 maalin kadib ama usbuuc kadib therefore waxaan ogaanay marka meel cayiman iyo waqti cayiman haddaan fiirno marka kale dhanka kale fiirno looda aan fiirno ayadana kalkeedu waa tan ugu yar waxay qadaa 1 maalin ama ugu badnaan 3 maalin waxaana ku tusaysaa inay aad u yartahay kalka looda waxa ku tusaysaa ereyga ah kala aad ku dhunto kii kala waa kan oo micnaheedu yahay kalka looda aad buu u yar yahay marka ereygaas dhan ay isticmaalayaan kal wuxuu ku tusayaa sheyga markuu meel ka tago oo isla meesha ku soo noqdo waqti cayiman kadib waxaa kaloo maqnaa idaacadaha marka dhageysanayno kal fadhigii shanaad ee baarlamaanka ayadan wuxuu ku tusayaa maanta markay shirkaas ay qabtaan waqti kadib ay waxay qaban doonaan shir kale marka erey maxaa ku jira marka ay meesha ka aadayna kal therefore haddaan soo gabagabayno Soomaali ahaan erey kal wuxuu noqonayaa sheyga markuu waqti cayiman iyo meel cayiman kadib waqti cayiman yaa noqonaya marka 30 maalin oo geela ah 5 maalin oo ariga ah ama si kale looda ah 7 ama 1 maalin ama 3 maalin therefore marka waqti cayiman meel cayiman maxaa noqonaa mar walba waxay imaan doonaan ceelka imaan doonaan waa Soomaali ahaan hadda physics aan u imaado marka ereyga periodic motion wuxuu noqonayaa is a motion waa socodka of an object kaasoo leeyahay walax that regular returns kaasoo had iyo jeer ku soo noqonayo or repeats ama si kale ku soo noqonayo to a given position meel cayiman after fixed time interval waqti cayiman kadib periodic motion socodka leed is a motion waa socodka of an object kaasoo leeyahay walax that regular returns kaasoo had iyo jeer ku soo noqdo to a given position meel cayiman after fixed time interval waqti cayiman kadib hay dhammaan marka sawiradan hoos noo muuqdo dhammaantood waxaan ku sheegayaa waa periodic motion waa socodka leed meel cayiman waqti cayiman kadib meel cayiman maxaa position kan uu sheegayaan ku noqon doona gadaal iyo hore uu socod doona waqti cayiman way qaadanaysaa sheygan dhaqdhaqaaqay waxa loo yaqaan geedkan waxa loo yaqaan simple pendulum wala hade fudud mar walba wuxuu noqon hore iyo gadaal kan kale marka fiirnasan waxa sheyga markuu imaad ku badan dhankan imaad mar walba wuxuu noqonaysaa dhan kale oo xoodkan imaanto dhan ku noqonaysaa meel cayiman iyo waqti cayiman ayadana waxaan dhigi doonaa periodic motion kan markaan fiirno waa walax ku soconayso goobo ku soconayso ayadana maxaa waqti cayiman iyo meel cayiman therefore dhammaantood markaan fiirno sawiradan kor noo muuqdo dhammaantood waxay ku tusiyaan periodic motion markaan indaayada ku noqdo kor waxaan ku sheegnay oscillatory motion periodic motion inuu weyn yahay periodic motion saddexda waxa la isku dhahaa periodic motion oscillatory motion laakiin kan oscillatory motion noqon karo sababtoo ah oscillatory motion waxa loo yaqaanaa inuu horay iyo gadaal u dhaqaaqo ama kor iyo hoos every oscillatory motion is periodic motion oo amcinaha shay walba oo amcinaha socod walba oo socod kaleed ah wuxuu noqon karaa oscillatory motion oo hoos gali doona laakiin oscillatory motion ma noqon karo periodic motion every oscillatory motion is periodic motion but every periodic motion is not oscillatory motion kan waa oscillatory motion dhammaantood isku wada waa periodic motion therefore waxaan leenahay markaan fiirno periodic motion waa uu ka mug weyn yahay ciwaanka koowaad wuxuu noqon doonaa periodic motion socodka leed oscillatory motion wuxuu noqon doonaa socod walhadeed ayuu noqon doonaa oo ay waxay isku mid yihiin vibratory motion oo ciwaan hoosaad dhammaantood waxaa isku dhihi karnaa periodic motion kan markaan fiirno back and forth u dhaqaaqayna waa oscillatory motion oo ah socod walhadeed we can identify waxaan cadeey karnaa several types of periodic motion dhowr nooc ama si kala dhowr example oo aan ka soo qaadan doono socodka leedka in everyday life nolosheen caadiga maalin walba aan aragno waxaa kamid ah the earth returns to same position in its orbit around the sun each year dhulku wuxuu ku dul wareegaa qoraxda hal sano resulting in variation among four seasons taasoo keenayso kala duwanaanshaha afarta waqti oo ah gu xagaa dayr iyo jiilaal dhulku wuxuu ku dul wareegaa qoraxda
waxayna qaataa waqti cayiman ay qaat meeqa waa 365 maalin taasoo keento kala duwanaanshaha waqtiga oo ah gu xagaa deer iyo jiilaal ay noqon doontaa sidaas la mid ah dayaxa the moon returns to the same relationship with the earth to the sun dayax wuxuu ku dul wareegayaa qoraxda xiriirkii hore kale resulting a full moon taasoo keenaysa dayax dhameystiran approximately once a month halkii bilbo hal mar uu dhameystirmaa marka therefore waxaan leenahay dhulku wuxuu ku dul wareegaa qoraxda waxayna qaataa waqti cayiman waxaa loo yaqaanaa periodic motion socodka leed dayax wuxuu ku dul wareegaa dhulka ayuu ku dul wareegaa ayadan waxaan dhihi doonaa periodic motion waqtiga ay qaato waxay noqon doontaa 29 beri ama si kale 30 beri examples of periodic motion examples kala hadda ka qaadan periodic motion waxaa noo soo qeexay hadda ka soo hadal maxaa dhulku wuxuu ku dul wareegsadaa qoraxda waxayna imaado afarta waqti afarta xilli ay ka dhalato gu xagaa iyo deer iyo jiilaal waxaa kaloo dhaanay dayax wuxuu ku dul wareegsadaa dhulka asigana maxaa waay marka socodkaas uu sameeynaa waa periodic motion inta waxaa kaloo ku heesanaa saacadan waxaa loo yaqaanaa waa pendulum clock wala saacada wala hashada waa saacadii hore awoowayaashan isticmaal jirnay ayadan maxaa geedkan hoose maxaa mar walba back and forth sameeynaa socodku uu sameeynaa waqti cayiman ay qaataa meel cayiman therefore waxaan dhihi doonaa periodic motion waxaa inta noo qoran waa marwaxadii masaajidada ku dhagan ayadan waxaan dhihi doonaa socodka ay sameeyso waa periodic motion kor waxaa noogu muuqdo walax culeys oo ku soo xiran moolo back and forth marna hoos isu aaday marna ka maxaa up and down therefore socodka ay sameynayso wuxuu noqon doonaa oscillatory motion wuxuuna sii hoos tagi doonaa periodic motion walaxdan waxay ku dul wareegaysaa goobo waxaan dhihi doonaa waxay sameynaysaa socod kaleed sawirkan hoosena waa taqaanaa waxaa ku muuqdo waa wiifowga ay ku ciyaarayeen caruurta kaasasina wuxuu sameynaya hore iyo gadaal uu noqonaya waxaa loo yaqaanaa oscillatory motion wuxuuna sii noqon doonaa periodic motion ayuu noqon doonaa inta waxaan geli doonaa waxa loo yaqaano period oo akalka and frequency iyo rakaadka of periodic motion kaasoo leeyahay socod kaleed period waxaan dhahaynaa waa kal frequency wuxuu noqon doonaa waa rakaad of periodic motion kaasoo leeyahay socod kaleed period wuxuu noqon doonaa waa kal and frequency iyo rakaadka of periodic motion uu leeyahay socod kaleed farqa u dhaxay marka period iyo periodic motion wuxuu noqon doonaa periodic motion oo hore soo sheegnay waa socod walba oo leh waqti cayiman meel cayiman iyo soo noqnoqosho aan ka helno waxaan dhihi doonaa waa periodic motion waqtiga uu qaadanayo ayaa waxaa loo yaqaanaa period socodku waxaan dhihi doonaa periodic motion waqtiga socodka uu qaato waxaan dhihi doonaa waa period oo akal frequency muxuu noqon doonaa marka frequency waxaan dhihi doonaa asigana waa rakaad ereygan rakaad markaan dhahno asigana intuu ka yimaado waa sidii hore maxaa u noqonaynaa baadiyaha ama si kale ceelka ku noqonaynaa ereyga rakaad waxaa la dhahaa marka xoolaha loo dhaamiyo ama si kale la geeyo ama si kale oo biyo cabitaan ay u tagaan ceelka ay u tagaan marka ay cabaan biyaha ayadoo waqtigooda la gaarin haddii ay wabxaan ama si kale ay dhargaan ay isla marka ay ku noqdaan waxaa loo yaqaanaa rakaad aan ku celiyay meeshan frequency waxaa dhihi doonaa rakaad micnihiisu wuxuu noqon doonaa xoolihii marka loo foofiyo ama si kale la geeyo ceelka ay biyaha cabaan ayadoo waqtigooda kale la gaarin oo maalinta kale la gaarin ayagoo ceelka joogaan haddii ay ku noqdaan rakaad micnaha noqnoqosho waa taradud af carabi ahaan lagu dhaho period waxaan dhihi doonaa waa kal waxaan usoo gaabi doonaa xarafka ah capital letter T waxaan dhihi doonaa is the time taken waa aminta ay ku qaadatay to make in la sameeyo one complete cycle hal wareeg oo dhameystiran aminta ay ku qaadatay ama si kale waqti ay ku qaadatay hal wareeg oo dhameystiran in la sameeyo waxaa loo yaqaanaa period oo ah kal ayaa loo yaqaanaa farqa u dhaxay period iyo periodic motion waan sheegnay motion waa socodkii period maxaa waqti uu qaatay halbeega caalamiga ee period uu leeyahay maxaan dhihi doonaa waa second ilbriqs ayuu noqon doonaa meeshan markaan fiirno waxaa imaanaya ishkaal ama si kale inay qof isku qaldo time iyo period farqiga u dhaxay period oo ah kalka iyo time oo ah aminta farqiga u dhaxay muxuu yahay sababtoo ah period waxa lagu cabiraa second time waxa lagu cabiraa second hadda aad u dhageysto meeshan waxaan dhihi doonaa farqiga u dhaxay period iyo time wuxuu noqon doonaa qeexitaanka aan kala fiirino time taken to make one complete cycle hal wareeg waxaan haysan haduu yahay hal wareeg oo yahay waxaan haysan wuxuu noqon doonaa kal ayuu noqon doonaa period haddii wareeg uu ka bato hal wax aan haysan wuxuu noqon doonaa time aan ku celiyay mar labaad meeshan period kalku wuxuu noqon doonaa hal wareeg hadaan haysan waxa haysan wuxuu noqonayaa kal haddii wax ay ka bataan hal wareegne waxaan dhihi doonaa waa time ama cycle aminta period waxaa lagu helaa qaacid ahaan time taken aminti oo loo qeeyo number of oscillation inta wareeg ereygan oscillation waxaa bedeli karo cycle vibrations and so on iyo wixii lamid ah waa time taken aminti iyo inta wareeg ay qaadato amintaasi frequency waxaa usoo gaabi doonaa waa f ama small f is the number of cycles waa inta wareeg made in 1 second halka ilbriqs meeqa wareeg ayaa dhacday meeqa walhasha ayaa dhacday kii hore muxuu ahay waa waqtiga uu qaadanay kan muxuu noqonayaa halka ilbriqsi meeqa wareeg ayaa dhacday halbeega caalamiga uu yeelan doono frequency wuxuu noqon doonaa hertz oo ah hertz waxaan la mid tahay 1/2 second
sababta Hertz loo dhan waxaa ninka soo saaray waxaa la dhihi jiray Heinrich Rudolf Hertz oo nin Germany ah therefore waxaa lagu magac daray awowgiis oo ah Hertz waa ninkii ugu horeeyay ee soo saaray electromagnetic waves heerka birlabdanabeedka therefore maadaama uu yahay ninka soo ixtiraaqay shaqo fiicanna uu qabtay wuxuu u bixiyay halbeegaasi Hertz oo ah Hertz oo awowgiis ah waxayna kula mid tahay hal oo la hoos dhigay second frequency wuxuu noqon doonaa waa number of oscillation inta walhasho oo loo qaybiyo time taken aminti marka daafirna marka qaacidadan iyo qaacidadan labadu maxaa marka waxay isku yihiin cagsi isku yihiin kan waa time taken loo qaybiyo number of oscillation kan wuxuu noqon doonaa number of oscillation oo loo qaybiyay time taken markaan fiirno marka labadu waxay isku noqon doonaan kuwa iska soo horjeedo cagsi ama si kale inverse frequency and period relationship muxuu yahay xiriirka dhaxeeya marka frequency iyo period kalka iyo rakaadka xiriirka dhaxeeya muxuu yahay haddaan ka soo hadalno muxuu noqonayaa frequency is reciprocal of period kalka wuxuu noqon doonaa rogaalka kalka frequency oo rakaadka wuxuu noqon doonaa reciprocal of period rogaalka uu leeyahay kalka period oo kalkana muxuu noqon doonaa is reciprocal of frequency rogaalka uu leeyahay rakaadka frequency oo rakaadka is the reciprocal waa rogaalka of period oo f xukul mid 1/t haddii period lagu siiyo way fududahay inaad heshid frequency waxaa ka dhigtaa oo kaliya rogaal ka dhig haddii lagu siiyo frequency na period aad rabtid maxaa ku helaysaa 1/f oo ah period is the reciprocal of frequency asigana wuxuu noqon doonaa waa rogaalka rakaadka ayuu noqon doonaa ama mar qaar buugta waxay dhahaan inverse ayadan waa isticmaal kartaa haddii la idmo inta waxaan geli doonaa example-ka koowaad oo cashirkeena aad u fiiri the suspended mass cuf meel laga soo walhiyay Mackis ayaa wuxuu sameeyay 30 complete oscillation 30 wareeg oo dhameystiran in 15 second aminta ay ku qaatan waxay tahay 15 ilbiriqsi what is the period muxuu noqonayaa kalka and frequency iyo rakaadka of the motion uu socodkaasi leeyahay givenkeen wuxuu noqon doonaa markood waxaan la siiyay 30 complete oscillation 30 wareeg oo dhameystiran waxa kale oo haysanay amin ah 15 ilbiriqsi sababta amin uu qaadan waxay tahay horaan soo sheegnay farqiga u dhaxeeya period iyo time wuxuu noqon doonaa haddii wareeg uu ka bato hal wareeg waxaan haysanaa waa time therefore waxaan u qaadanaa time kan 15 second ee waxa lagu dirinaa soo heshid period oo ah kalka uu leeyahay socodkaasi b waxa noola diray frequency oo ah rakaadka uu leeyahay socodkaasi haddaba aan raadinay marka koowaad waxaan haysanaa number of oscillation iyo time taken waxa noola diray period solution keen wuxuu noqon doonaa muxuu yahay xiriir ka dhaxeeyo number of oscillation iyo time taken iyo period waxa lagu helaa time taken oo loo qaybiyo number of oscillation inta wareeg oo shaygan uu sameeyay hay aminta ma qaanaysanaa 15 second wareegan waxaan haysanaa 30 wareeg ama cycle 30 cycles ama oscillation ama vibration mid doonta noqotay hay saan u helna marka in 15 u qayb intana 15 u qayb korada 15 u qaybin waa 1 hoosda 15 u qayb waa 2 waxa koreysana second oo period kan wuxuu limid yahay 1/2 second haddii aan jajab ahaan u bedelno wuxuu noqon doonaa 0.5 second haye waxaan haysanaa period b waxaan oo diray frequency waxaa jirta xiriir ka dhaxay frequency iyo period inuu mid walba kan kala rogaalkiisa ahay therefore haddaan period soo helno frequency-gan maxaa ku helaynaa 1/period ama si kala rogaalku uu leeyahay kalka haye waxaan dhahayna marka hal oo loo qaybiyay 0.5 second haddii aad calculator-ka gashatid ama caadi aad u shaqeysid wuxuu noqon doonaa hal iyo 0.5 daas ku qeyn waxay noqonaysaa 2 1/second waxay la mid tahay hertz waxaa kale isticmaali kartaa frequency qaacidada caadiga ah oo frequency waxa lagu helaa number of oscillation oo loo qaybiyo time taken number of oscillation ma yaqaan haysanaa 30 oo loo qaybiyo time taken oo ah 15 second inta waxa u qaybisaa 30 inta waxa u qaybisaa 30 waxay noqonaysaa waa 2 hoos maxaa ku soo haray second 1/second waxay kula mid tahay hertz therefore frequency-ga wuxuu kula mid yahay 2 hertz oo amcinaha halkii second waxa dhacayso laba wareeg halkii second waxa dhacayso laba wareeg oo hertz bedel 1/second waa 2/second halkii second waxa dhacayso waa laba wareeg example kan kala buuga ma ku jiro laakiin si aad u fahantaan ayaan ku daray waxa lagu dhahay an object is a span walax ayaa waxay ku waniinaysaa macna ku wareegsanaysaa around a circular motion socod wareeg ayay ku wareegsanaysaa such that its frequency rakaadkeedu wuxuu noqday 12 hertz an object is a span walax ayaa waxay ku waniinaysaa around in circular motion socod wareeg ah such that its frequency rakaadkeedu wuxuu noqonayaa 12 hertz
what is the period of the rotation muxuu noqonayaa kalka aad baan u maleynaa inaad fahmaysaa marka lagu diro period the frequency haye maxaa raacsan how much time will be required amin intee laga loo baahan yahay to complete 86 rotations 86 wareegsi loo sameeyo meeshan aan ugu cusub how much time will be required amin intee laga loo baahan yahay to complete si loo sameeyo 86 rotations 86 wareeg haddaba given keen wuxuu noqon doonaa markooda aan qorano given waxaan la sii ko frequency oo 12 hertz rakaadkeen wuxuu noqday 12 hertz waxaan noola diray period b waxaan la sii number of oscillation waa 86 wareeg waxaan noola diray time ama si kala aminta ay ku qaadanayso haddaan xalinta ama si kala shaqada aan furfuristi aan galno marka koowaad waxaan noola diray period waxaan haysanaa frequency xiriir ka dhaxeeya period iyo frequency hore u soo qaaday mid walba wuxuu ahaa rogaalkiisa oo period wuxuu kula mid yahay 1 over frequency period keen wuxuu noqon doonaa hal oo loo qeybiyay rakaadka meeqaan haysanaa 12 hertz haddii aad calculator-kaaga soo qaadatid hal oo loo qeybiyay 12 waxaa noo soo baxay 0.083 maadaama saddex ay soo noqonayso marka hal xab aan ka qaadanaynaa period keen wuxuu noqon doonaa 0.083 second waan xalinay oo period keen wuxuu noqday 1 over f oo 1 oo loo qeybiyay 12 hertz hertz wuxuu kula mid yahay 1 over second maadaama second ka hoose uu yahay u tagi doono 0.083 second b waxaan raadin doonaa time taken waxaan soo qaadanayna qaacidada period waxaa lagu helaa time taken oo loo qeybiyay number of oscillation waxa u baahan anaga time ay noola diray hoose waxaa noo yaal number of oscillation waxaan isticmaalaynaa xeerka xisaabta oo ahay haddii shayga hooseeyo waxa ku baabi'inaynaa koreeya ama si kala hadduu qaybin waxa ku baabi'inaynaa ku dhufasho hadduu ku dar yahay ka jar hadduu ka jar yahayna ku dar haddii ku dhufasho uu yahay qaybin therefore waxaan haysanaa qaybin sabab baabi'in meel walba waxa ku dhufanaynaa n geesi kalena waxa ku dhufanaynaa n any n waxay noqon isla bixeen period keen wuxuu kula mid yahay waa number of oscillation time keena ama si kala amintu waxay kula mid tahay number of oscillation uu dhuftay period okay amintu waxay noqon doontaa 86 wareeg oo lagu dhuftay period ka kor ka soo helna maxaa soo helnay 0.083 second 0.083 second hay calculator-kaaga soo qaado 86 oo lagu dhuftay 0.083 maxaa noo soo baxay 7.138 therefore 8 noo soo buuxi marka 3 noo soo buuxi maxay noqonaysaa 4 oo ah time wuxuu noqon doonaa 7.14 second haddaba su'aashana waxay ahayd meeqa ayaynu ku qaadanaysaa 86 wareeg in la sameeyo 7.14 second kadib waxaa la sameeyo doonaa 86 wareeg haye haddii 10 aan soo qaadan waxaan sugnaa waa kaliya inaan exercise bixino exercise wuxuu noqon doonaa waxaan haysanaa 5 xabo iska fudud 4 xabo oo ka shaqeyn ah iyo 1 xabo oo qeexitaan ah marka oo saddex u kala baxdo therefore mid walbo waa example hadda soo qaadanay isku day inaad ka shaqeysid waana kuu sii fududeena shaqada aadan ugu dhibtoonin si lagu saxo answeriska hoos ka fiirso aad baa u mahadsantiin daawashada casharka aad daawateen waxaan idinku dhiirigelinayaa mar walba exercise-ka in aad xalisaan aad baad ugu mahadsantiin daawashada casharka aad daawateen wixii talo tusaalo soo jeedin saxiid ah waxaad noogu soo hagaajisaan nambarada shaashada idinkaga muuqdo waa mahadsantiin 10 jeer